عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو soo noqod waxaan saabta qiimaha qayax badan waxaan soo gaarnay argumentaha 12aad barashada batantibiga qaybtiisa manualka. Okay, sidaad ogtiinba markasta markuu noo dhamaado argumente inta aanan bilaabin argumentaha saxiixa qaybtiisa quiz-ka waxaan sameynaa qaybta faahfaahinta si aan u barano ama aan u ogaano argumentaas wax uu ka hadlayo insha Allah binaan kareem. Okay, marka argumentan wuxuu ka hadlayaa distanza di sicurezza. Waa maxay distanza di sicurezza? Distanza di sicurezza waa gaarigaaga iyo gaariga adiga ka horeeya masaafada u dhaxaysa ama space-ka u dhaxeeya ayaa la yiraahdaa. Okay, marka wuxuu yiri per comprendere che cosa è la distanza di sicurezza, da quali fattori dipende e come rispettarla, è necessario conoscere il significato. Wuxuu yiri per comprendere marka la isku wada duubo che cosa è waa maxay horta la distanza di sicurezza, da quali fattori maxaa ugu muhiimsan dipende ama ku xiran yahay e come sidoo kale sidee baan rispettarla aan ugu dhaqmi karnaa. È necessario waa daruuri conoscere inaan barano il significato macnaha. Okay, marka wuxuu yiri spazio percorso del veicolo nel tempo di reazione. Gaariga space-ka ama masaafada maxaa la yiraahdaa uu qaadanaya marka aniga reaction ka sameeyno. Spazio di frenatura, space-ka oo gaariga marka fariinka qabato inta uu ku istaagay. Spazio totale di arresto, inta gaariga guud ahaan marka ficilka sameeynaysa marka fariinka qabanaysa ilaa uu istaagay space-ka uu qaadanaya ayaan ka hadlaynaa. Okay, asla fahanayso marka wuxuu yiri spazio percorso nel tempo di reazione. Space-ka oo gaariga maxaa la yiraahdaa uu qaadanaya marka aan sameeyno ficilka laga bilaabo marka aan fariinka qabanayno. Marka wuxuu yiri ammesso ad esempio tusaale ahaan che il tempo di reazione falcelinta sia di un secondo waa hal secondo. Lo spazio percorso durante esso sarà halka second. Macnaha gaariga markuu 50 km/h markuu ku socdo 14 mm camal uu ku qabsamaa macnaha waxaa laga wadaa space-ka gaariga markuu 50 km/h uu ku socdo wuxuu dhigmaa 14. Okay, 28 marka macnaha speedkiisa uu yahay 100 km/h ba 28 uu dhigmaa ama 28. 130 marka uu ku ordayo gaariga waxay u dhigantaa 36. Okay, spazio minimal laha marka 150 speedkeena markuu yahay 42 u dhigantaa. asla fahanayso marka insha Allah binal kareem wuxuu yiri alternativa più facile per me approssimativa dividere la velocità per 10 moltiplicare inta spazio di frenatura waay allo spazio e waxa yiri lo spazio di percorso del veicolo waa xilliga gaariga maxaa la yiraahdaa oo qaadanaya inta uu qaadanayo dall'inizio laga bilaabo della frenata marka fariinka la qabanayo alla resto ilaa uu ka istaago. Tale valore dipende innanzitutto della velocità waxay ku xiran tahay speedka gaariga. macnaha haddii speedkiisu sareeyo kala hore marka istaaga xoogo isjiida sama. haddii gaariga speedkiisa uu yar yahayna waxa laga yaabaa masaafo dhow inaad ku istaagtid. Insomma, spazio totale di arresto. Lo spazio totale di arresto waxaa yiri uguale wuxuu la mid yahay alla somma maxaa la yiraahdaa cadadka dello spazio percorso inta uu qaadanayo inta gaariga uu maxaa la yiraahdaa uu socdo durante il tempo di reazione falcelinta dello spazio di frenatura iyo fariinka inta uu qabanayo. Distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza è la distanza waxaa yiri masaafada da mantenere la raba inaan ku dhaqno rispetto inaan ku dhaqno ama xishmayno al veicolo che ci precede gaariga naga horeeya davanti ama horteena. Wuxuu yiri per consentirci si uu nooga ogolaado in caso di pericolo di fermarci haddii khatar ay jirto si aanan gaariga aanan hoosta ugu galin. haddaa ka fogtahay gaarigaas aragto inuu fariin qabtay adigna si aa u istaagi karto. distanza kaas alla. Okay, marka ilaa dukura insha Allah kulay quiz-kiisa si fiican u fasirayna misura della distanza di sicurezza. misurada 9 waxaa waaye 30 14 50 28 kan kii haday aan soo marno waaye 42 150
معناه وحو كدحايا كويسك إن شاء الله waa wada arki doontiin wuxuu ku leeyahay se si percorre maxaa dhaha lo spazio di frenatura lo spazio totale del resto è 42 se si percorre 150 camal u dhaha se si percorre 130 36 se si percorre 100 km/h waa 28 se si percorre 50 waa 14 30 km waa 9 waxaa waa macnaha radobia tredobia maya wax noocaas okay insha Allah bidin alkarim waxaan maxaa la yiraahdaa si fiican u fasiri doonaa qaybtiis quiz-ka dhamaantiina hadii waa la yiraahdo waxaan filaynaa wax badan kooda faa'iido doontiin muuqaalkana like noo saara asxaabtiin kala la wadaaga waxaa inoo balanaaba waa qaybta quiz-ka oo waliba aynu u wada fahmi doonaa si aan caadi ahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.